Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaa mar kale u ciyaaraya Ayaanle Maxamed Axmed. Waana markii labaad ee aan u ciyaarayo. Markii koowaad $500 waxaa u gaarsiiyey ilaa $2,300. Haddeertaan akoonkiisa waxaa ku jira $1,880. $1,880 ma u follow gareyn doono inaan gaarsiino 2 jibaar. Waayo mar walbo hubka aa wadato haddii uu ka badan yahay hubka qofka ka soo horjeedo probability winning kaada micnaha kala jeedaa tusaalaha nooca qaabkaas u soo qaadanaya. Soo marka 2,300 iyo jajabka markaa gaarsiiyey $500 nadiif oo la baxay berdaygiisa. Soo marka isaga waxaa ka go'an $500 oo berday si nadiif ah inuu u helo without risky. Soo marka waxay taasna ku xiran tahay investmentiga ama lacagta marka uu investment gareysanayo. Lacag macquula oo lacagta lagu sameyn karo oo waxba riski aana la geleynin. Soo marka haddeertaan 1,800 boqolkiiba boqol $500 waa gaarsiin karaa wax walba haddii noqoto anoo $1 xitaa aana qasaarin. Sababtoo ah ani hubka aa wato aad u badan yahay. Probability-ga ama janiska ku guuleysan karana aad u badan yahay. Soo marka waxay iga saacideysaa inaan berday $500 sameeyo. Berday $500 haddii sameeyo almost bishii meeqa dollar ay noqonaysaa waxay noqonaysaa lacag ku dhow $5,000. $5,000 lacag yar ma aha oo waa lacag fiican. $15,000 dabcan waa lacag fiican oo lacag sahlan ma aha. Soo marka qofka haddii si caqliyan uu u fakiro logic uu u fikiro target iyo emotion-kiisana oo control targetna uu yeeshto focus-kiisana hal mar uu saluminin mar walba success oo noqon doona. Dhalinyarada marka lacagaha balkan deposit gareysto waxaa kula talinayaa hal sana ha kugu qaadato lacagta budget aa ku sameysan lahayd. Laakiin inta maalin walba $100 deposit garey lahayd adoo $200 $300 $400 raadinayo oo qasaari lahayd waxaa kaaga fiican inaad budget fiican sameystid lacag fiican raadsatid kadibna lacagta si berday lacag aa kaga sameysid. Haddeertaan game-ka guda geli doonaa waxaana gaarsiin doonaa $2,500 without risky. Game-keeni koowaad had galnay. Kaliya waa game-kii koowaad ya. Automatically waa la deganay. $2,192 ahaynaa. $50 ku dareynaa. Without no risky waaya without no risky. Marka la galeena hadda waa halkii lacagtiisi qofkii aa ka bilaabay oo nadiif ahaaya. Haddii kan xitaa aa iska sii fasaxdo profit nadiif oo ii dhalaya laakiin anaana rabin inaan iska sii fasaxdo. 1,800 hadda ku soo laabanay. One game aa loo gareynay inta hadalka waday. No loss wax la dhamma rabo. Target-kiga hadda $2,500 meeqa iga dhiman $730 iga dhiman $450 waa ii taala. Soo marka risk dhamma rabo automatically haddeertaan waxaa halkaas ku hid gareeyay $2,500. habeen hore $500 la baxay caawana $500 la baxaya $2,000 meesha ku hareysaa. 2,000 meesha ku hartan every single day wuxuu ka sameynayaa $500. Qorshahaas qorshe fiican oo shaqeynaya muuse ahayn. Haddeertaan waxaa dheeraad ah $88. $88 anaa si caadi ugu ciyaari doono. Lacag calaala lacagtii noqotana dabcan lacag ani aa commission ahaan u lahaa doonay noqon doontaa. Hadda almost waa qasaarnay. Soo marka hal mar waxaa rabaa inaa lacag yar oo commission-keyga ahaa ka sameysto. Anoo weliba wax riski qaadanaynin. Haddeertaan 2,800 ahaaya. Qofka 2,500 oo maalinlaha uu la bixi lahaa ilaa iyo 2,000 oo nadiifka ah kama taaba doono. 2,500 kama hoos mari doono. Wixii ka koreeya anaa iska leh intaa gaarsiistana dabcan waxay ii noqonaysaa lacag aan ii leeyahay. 2,500 si nadiif ah halkaas ugu taala sida kuu muuqato.
ana hadeertaan intaa ciyaaraya target maana sameysan. soo marka hadda target inaa sameysto waayo aan naftirkay 500 u baahanahay. 500 ma rabo inaa ka hoos maro, mana rabo inaa ka kor maro. haddii aa gaaro waa joojinaya, haddii aa gaari waayna waa joojinaya. waxaan mar walba budget waaye, budgetkaada haddaa qaladid waa ahaanaysaa. automatically hadeertaan waxaa sida ku gareeyay $3,000. 2,800 qofka uu lahaa $700 uu ka sameeyay. $700 laakiin uma xisaabeeno oo $200 akoonka ku reebeynaa si habeen dambe 2,000 haddana si nadiif ugu sii ciyaarno. oo xitaa haddii risk imaan lahaa uu u yaraado 500 si nadiif uu la baxo, 500 dabcan si nadiif uu la baxo. taasna waxay naga saacidaysaa mar walbo in qofka dabcan si nadiif uu isagana lacag ku sameeyo oo easy ah oo wax dhibaato aan lahayn. marka waxaan rajeynayaa in aad iyo aad u fahantay. hadda halkaan aan ku laabaneynaa, almost halkaan aan tegeynaa. $1,000 si nadiif ah loo bixinaa 500 laakiin $1,000 oo cryptocurrency ahaan lagu bixinayo $40 go'eyso. soo marka $40 u baahannahay. $40 darteeda mararka qaar laga yaabo inaad u khasaartid, laakiin ana hadeertaan ma igu dhacaysa taas 100% anaa hubo. $40 gaarsiinaa, $1,000 si nadiif ah u bixinaynaa cryptocurrency ahaan, 500 dan, 500 dan. labadiisa kuna si birdhay oo lacagtiisa u qaadanaya. soo marka qorshe fiican oo qofka haddii budget uu u sameysto uu lacag kaga sameyn karo waaye. maalmahanna waxaa bilaabi doonaa muuqaalo sidaan oo kale ah oo dadka wax badan ay ka fahmi karaan. hadda $1,000 $40 u baahannahay. $40 soo marka inaan meel soo galno ma rabno, almost waa haysanaa. take weynna leenahay almost 200 aba gaarnaba. halkaasaa marka muuqaal ku joojinaya. hadda halkaa maxaa kaaga muuqdo ayaanle maxamed axmed markaa muuqaalkiisa bilaabaya meeqay ahayd 1,800, hadda 3,200 waaye. 2,000 waxay noqon doontaa lacag budget ah oo 500 sida aan ku balannay birthday oo qofka u qaadan doono. $500 waa commission ani ahaan u lahaa doono oo qofka aan ku wada balannay. labadaas boqol dheeraadka ah dabcan micno ma sameynayso, almost waa ku reebi doonaa $40 mar walbo cryptocurrency lacagta ku bixinayno. $40 $1,000 ka go'eyso. labadaas boqol marka si caadi ah u reebi doonaa. soo marka adiga waxaa kugula talinaya dhalinyarada bahalkan isticmaasho. mar walba lacag intaad deposit gareysa lacag badan adoo ku raadinaysa lost ha qaadan. adi intii lagu yaryareysan lahaa waxaa ka qurux badan in aad yaryareysato. ana hadeertaan 3,200 ahaaya. waxaa laga yaabaa $100,000 haddii aa ciyaar inaa gaaro, laakiin probability losskayga aad u badnaanaya. soo marka adoo heli karo wax legit ah oo si nadiif ah ku heli kartid inaad risk u bariirtid waa qalad bataatanbo. muuqaalkanna intaas ka badan ma sharaxi karo, laakiin waxaan rajeynaa qofkii wax fahmayo ama qofka caqli leh in muuqaalkan tusaale uu u noqdo. marka haddii ta doorashada ku wareejin channelka waxaa shashmada kaaga codsanayaa inaad jalka subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, saaxiibadana aad la wadaagto. waana ku mahadsantahay doorashada muuqaalkan.